kiise anigu oqoon la'aan kama aha wadaadada soomaalida waan arkay waa niman calooshi shaqaystayaala maxaa yeelay sacuudigay ku xidhan yihiin sacuudi arabiyay ku xidhan yihiin masaajidooda lacagyaa la siiya safaaradaha sacuudigay ku xidhan yihiin anigu magaalada ottawa jaraa'id baan ka daabici jiray safari post loodhan jiray jimcihii baan safaaradaha geyn jiray waxaan arki jiray xitaa anoo magacdooda magacaabayn wadaadada soomaalida oo masaajidana soomaalida lacagta ka guranta safaaradaha qatar iyo sacuudi arabiya iyo cimaaraadka iyo brunei jooga marka xitaa dhulkeennii way ku xidhan yihiin waxaan sameeya lana u fiirso mar alla marka ay iiraan ay israa'iil iska dhowdo unbay la soo baxaan buugga ay yidhaahdeen waa shiico sunnigay laayaan maba joogtaba raggan waa rag iska dhabaya rag doonaya inay guumaystaan oo yuhuuda may u hadlaana gaza hadday ka daacad tahay waayo laakiin de sacuudigu ma faslixin raggani sacuudiga u shaqeeyaa soomaalidu taa inay ogaadaan ba loo baahan yahay iskama hadlayaanu laakiin iyay waalayaan iyayse ka oqoon badan yihiin iyay ka caqli badan yihiin hadday doonayaan inay diin ay ka hadlaan waxay dadka muslimka u kala jebinayaan shaqadii waxay fulinayaan ay zionismku wadeen mar alla markaad kula ariyu shiica oo ariyu sunni bay ku odhanayaan waayo waa muslimka la kala diraya haddii uu labada waa inaad eegtaa iyaan anigu iiraan iyo israa'iil anigu iiraan baan raacaya waayo nimankan ilaahba ma aaminsno dad muslina oo yay laynayaan waa annaga arkayna xasuuqay ku samaynayaan falastiiniyanka marka waxa iiraan iminka maxaa keena iminka inay iiraan weeraraan waa shaqaynayaan shaqay ku jiraan hawl bay ku jiraan marka in la qiimeeyaba maaha in wax laga soo qaadaba in la dhegaystaba maaha